gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed oo muddooyinkii u dambeeyay u joogay magaalada Bure ee xarunta gobolka Togdheer dhageysiga dacwadaha kala duwan ee yaalla maxkamadda gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay bahda cadaaladda iyo garsoorka ee gobolka Togdheer sidoo kale gudoomiyaha ayaa dhageystay dacwado loo tagay jiray Hargeysa oo yaalla maxkamadda gobolka Togdheer kulankani uu gudoomiyaha maxkamadda sare u la qaatay gudoomiyaasha maxkamadaha raafaanka ee gobolka Togdheer gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer iyo guud ahaanba bahda garsoorka ayaa mid lagu dardargelinayo howlaha shaqo ee garsoorka ugu horeynba waxa kulankani ka hadlay gudoomiyaasha maxkamadaha kala duwan ee heer degmo iyo heer gobol iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha gobolka Togdheer kuwaasi oo ka warbixiyay kulankani ay la qaateen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland inala jooga oo habeen hore inoo yimid shalayna halkan hawsha ka waday gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah garyaqaan Aadan Xaaji Cali isagoo hogaaminayay saddex kooxood saddex tiim oo u yimid dacwadihii gobolkan Togdheer ka tegay ee maxkamadda sare gaadhay in halkan ay ku qaadaan kuwii dilka ahaa kufsiga ahaa khamriga ahaa ee cuslaa ay dadka u soo dhoweeyaan gobolkan Togdheer ay ku qaadaan ilaa Ceergaabo ay tagaan gobolka Sanaag ilaa Sool ay tagaan ilaa Saaxil dabeedna innaga ayay nagu soo horeeyeen taasaa markaa keentay in shaqaalahan bahdan garsoorka ee garsoorayaale ee kaaliyaale ee xeeraalin leh ee gaadhsiyaale ee nadiifisa leh dhammaan shaqaalaha ka howlgala maxkamadahan iyo xafiiskan xeeraalinta ee gobolkan Togdheer inuu la kulmo saaka waxaynu isugu nimi ama shirkan aynu fadhina uu yahay shir aynu ku soo dhaweynayno gudoomiyihii maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah Professor Aadan Xaaji Cali mudane gudoomiye marka ugu horeyn dhamaantayo annagoo isku duuban waxaanu ku leenahay qalbi furan ku soo dhawow niyad sami ku soo dhawow waan ku soo dhaweynaynaa aad baan ugu farxsanahay runtii inaad noo timaado waliba shirka kale noo qabato aad iyo aad baan ugu farxsanahay gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa inala jooga inaanu anagu ku soo dhaweyno garsoorka iyo shaqaalaha weeye kelmadayadu laakiin cidda maanta munaasibadan aynu u qabanay ee loo qabtay ee aynu sugayno dhiirigelinta iyo maxaan ku dhaahday dardargelinta iyo maxaan ku dhaahday la xisaabtanka intaba waa gudoomiyaha maxkamadda sare mudane gudoomiye waxaan markaa ku leenahay dhammaan garsoorkii bahdii garsoorka ee gobolku halkan ay diyaar kugu yihiin waxay diyaar u yihiin wixii dhiirigelina wixii tilmaana wixii isla xisaabtana annakuna ka mas'uuliyad ahaan inaanu kugu soo dhaweyno oo nidhaahno waa kuwan gudoomiyaha shirkan adaa noo qabtay dhamaantay waana kugu soo dhaweynaa inaad wixii tusaala iyo wixii tala iyo wixii toosina inta baad nasiiso geesta kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed waxaana uu soo jeediyay bahda garsoorka ee gobolka Togdheer in ay dardargeliyaan howlaha shaqo ee garsoorka isagoo uga mahadnaqay gudoomiyuhu sida ay u soo ajiibeen kulankan oo isku yeedhay bahda garsoorka ee gobolka waanan ku faraxsanahay inaan imaadno is aragno is wareysano wixii talo iyo tusaale idin soo jeedino idinku wixii ray haysaan nagu biirisaan arinka labaad ee kalena ujeedada ugu muhiimsan ee saddex arrimood bay ka koobantay mid waa booqashada iyo ka warhaynta iyo kormeerka weeyaan midda labaadna waxa weeyaan maxkamaddii sare ayaanu soo rarnay iyadoo guuraysa marka in ku dhow 40 qof baanu nahay ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan dacwadihii
gobollada yaalay in halkan lagu dhageysto oo lagu dhageysto meelihii ay dacwaddu ka taagnayd haday ciqaab yihiin iyo hadday badan yihiin. sidoo kale maxkamadda gurguurta ayaa dacwada ka dhageysatay meelo ka baxsan maxkamadda iyagoona ku guuleysay soo afjarista dacwadahaasi ay banaanka ku qaadeen doodahooda. sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa gudaha maxkamadda ku dhageystay dacwado muddo dheer socday. dhageysiga dacwadahani kala duwan ee maxkamadda sare ee Somaliland ka wado gobolka Togdheer ayaa qayb ka ah dardargelinta nidaamka garsoorka ee Somaliland iyagoona maxkamadda sare ee Somaliland ay ku sugnaan doonto gobolka Togdheer muddo 7 ah. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishinka caalamiga ee Ariel, magaalada Burco.